barakaatu kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal idin ahaantiiba meel kasta oo naga daawanaysaan kuna soo dhawaada barnaamijkeena reeyga dadweynaha oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono doorashada xildhibaanada golaha deegaanka iyo golaha wakiilada oo fooda inagu soo haysa daawadayaal qaar kamid ah dadweynaha reerkiisa ayaynu weydiin doonaa reeygooda barnaamijka waxa la socodsiinaysaa anigoo ah Linda Cabdi Maxamed waxaan ka daawanaysaa Xuriyad 24 TV Assalaamu alaykum adeer ku soo dhawaada barnaamijka reeyga dadweynaha telefishinka Xuriyad 24 TV adigoo magacaaga ku bilaabaya xildhibaan doorashadii waxa soo dhawaada fooda inagu soo haysa golayaasha deegaanka iyo golayaasha wakiilada reeygaaga markaad nala wadaagtid xildhibaanada waxaad ku dooran lahayd qaab qabiil mise qaab sidii dadku wax ugu tar lahaayeen iyo magacaasimada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت قابته وحلو دورته قبلي بوا قبيل قبل لا تدور شيء مشلو. وهي بالبن قضية. لا تتعيش على خويا قبتني خبرات أنت اللي تقولي قبلي بقى أنت حالك ده شيء يجيب بقولك تسلم توري ربان. واحد بيعن شقادة ما تقانا ما ترى حديبان تخي هي تزوج راح يصير ما الدولار اللي واحد دوري واحد بيعن $1 توقعته $30 قاته مثل بعد خبرتي السوري لهي العاصمة هي دبلة هدي الدون يو إن أينو يسافروا وإن لبارا خبرت داعد أو نندو سودان توصحوا لا أمر هير توصحوا لا ميت متعلمة أو باهن مشاهر ودينار زفرديو خبرت له لا تينا يوروب ده يميو من دلالة جامعات ده يميو تي جامعات تبع حيلف بولي دلالة بديها سلادين تو واحد مودعين النقدين خبر شو ما لا النقدين سلادين تن وين يتوحوا لان متعلمين دول الدلالة بديها خبيرة ده الدولة الصومالية هي عالم دولة شنغال ترى لا تدي قبض إلى يوروب ده يمي أما جامعات بان هردان تبع حي أما واحد قضايا واحد إذا بهدل ما يبى بدوت خبرة على ظهرية واحد بيعن أديكو خبرة له إن النقطة تالية هدي كان ده سياد بروزو شقيتري هي علينا أو دور ما قرانا أنا ترسلنا توا بهدل مياه اللي خبرة جديد ليه ما مكجايب الدادي جديد له خبرة عجيب وحلو بها هي سلادين إن أنا استعمالين دورشة واستعمالين دولها دلانتا يا برلمان تبع أنا واستعمالين لقاله وقلنا هير لا دمار مايو نقول بورير لا تهير ولا بقى حديمان ديسة متعلم ديسة دينار تفرديها إلا بعد أنت تنفرديه إيه سوتش هذه إيه صوت أمري إنه صوت أمر يعني مرة عتين قضينا يلنا ما دونا يعني ما أنتني لبعض $2 ولا جبت تمين ولا جماعة بيدونا يعني لكن ما أنتني لبعض $2 بتفرن ما ده واحد في عاد إنه دور إنه متعلمين ده خبرة عليه السلام عليكم أظن ما أنت هذا السلام عليكم ولا الله مقعد كبلاوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسروا تلفزيون حرية 24 TV براشك ريجة دوينها حرية 24 TV براشك ريجة دوينها براشك إحنا كسر قدرنا كده هذلنا قرشدي قلها الدجاج يقرأ وكيلة وفوضى نقص هيسا الحلبانة قاب نوعية سلدة والقصة دوران كرا بقاب قبائل الدجاج بس قاب حلبان سلدة وحين قطر كرا والدجاج يو طلق جودها الشمال لام بهرم كرا وطفي عنتي سؤال هو راكسن ورد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان همبليني تي في iyo shacabkaba waxaan laakiin ku talin lahaa anigu doorashada horta waxa weeyaan inagu waxaan qaadanay nidaam dimuqraadi ah sida ka Mareykanka kale marka qofku sidii wuxuu doono dadka ku kaxaysto waxa loo baahan yahay aqlabiyad waxaan ku dar lahaa han noqdaan dad academy level oo ilaa heer jaamacadeeda oo shuruuda hore waxa lagu xiray heer dugsi sare ahayd marka imika waa in laga dhigo heer academy level oo heer jaamacadeeda si hadhow dad wax qaban kara oo wuxuu garanaya de hadhow wax ku qaban kara inay ka soo baxaan meeshii laakiin qofku isagu dadka ama qabiilha ku kaxaysto ama falsafad kale ha ku kaxaysto adigu wuxuu sheegay dadka wuxuu doonaha u sheegay ama lacag ba ku kaxaysto wuxuu ku kaxaysay dadka ku kaxaysto waxa loo baahan yahay inuu qofkii dadkii helo marka doorashada tahay cod baa lagu soo baxaya
dee inuu cod ku soo baxo waxa kale oo jirta in codadka qofka ku soo baxay xitaa la siin waayo oo codka qofka ku soo baxay qof kale xisbiga ugu shubo taasina ma habboona waxaan kaloo ku talin lahaa anigu haddii doorasho tahay horta waxaan halkan maanta uga faa'iidaysanayaa hal jaanis oo aan lahaa anigu haddii aan hadla shakhsiyadayda waxaan qabaa madaxweynuhu waa maqan yahay waa og yahay waa la hayaa ictiraafkii waa dhan yahay ictiraafkii Soomaaliland waa la hayaa waana la soo qaadaya sida ugu dhaqsaha badan waana la soo gudbi doonaa sida ay imika jaaniskan kaga faa'iideysan karno sida loo hayo waana sirtaadan in cid kale ogaato ma aha marka ictiraafku waa la hayaa shacabku waa inay u diyaar garoobaan doorashadii waxaan ku soo gabagabeynayaa mawduuca oo ah in qofku wuxuu ku kaxaystee uu cod helo qabiil ha kaxaysto selfie wuxuu doonaa isagu cod un baa laga doonayaa السلام عليكم والله المقعة ايش وعليكم السلام والله المقعة محمد يا لها محمد قعد يسي دور شولي ها دور شدي عوديس سي دويني مدحوينها in hadda waxa fooda inagu soo hayso doorashadii golayaasha deegaanka iyo golayaasha wakiilada qaab noocyad xildhibaan deegaanka ka soo jeeda dooran lahayd adigu mise waxa dooran lahayd xildhibaan aad isleedahay aqoon buu leeyahay oo wuxuu ku soo kordhin karaa dalka guud ahaan iyo caasimadda hadda joogno wallaahi horta waxaan anigu sidaan qabo qabiil kuma doorteen waxaan ku dooran lahaa kaliya aqoon iyo cadaalad u leeyahay waayo cadaaladu waa waxa wax kala saaraya imika Hargeysa ayaa bari dhaweyd ayaama sanada aan siiba fogeyn waxa ka shaqeysay qabiil qofka wax barashada lagu qiimeeyay xildhibaan baa lagu qiimeeyay ama wax kale lagu qiimeeyay laakiin hadda imika sayirad aan marka imika wax ay iska bedelay sida shaqo qaranta oo kale iyo waxa la isku qiimeeyaa aqoonta marka wallaahi horta anigu hadii aan qiyaas waxaan dooran lahaa xildhibaan cadaalad leh rag iyo dumarku doonaba ahaado aan dooran lahaa أبو ماسنت السلام عليكم والله كسر مراش كريجة دوينا حرية فورتي في ونكسر دوي ولا على xildhibaanada golaha deegaanka ama golaha wakiilada la dooranayo sanadkan ka soo socda maxaad ku dooran lahayd ma xildhibaan deegaankaaga ka soo jeeday si xildhibaan istiraadid wuxuu tari karaa dalka maadaama dumarku cid u badan dumarkii dhalinyaradu iyo cid u badan codaysa dalka codaysa maya waxaan ku dooranayaa mid dalka iyo dadkaba anfaca oo cid doonaha ka soo jeeday wuxuu qabanayo ummadiyo dadkaba marka qabiilkayga ma dooranayo anigu waayo markii hore waan dooran jiray laakiin sanadkan ma dooranayo waxaan ku dooranaynin waxa dalka anfacayuunba walaal ayuun bay inoogu jirtaa inaga marka waxaan ku dooranayaa anigu wax qaba insha Allah السلام عليكم والله كسر دوبرار كريجة تلددوينا حرية ونفر تيجي سؤال شو كويدني واحد هاي حلبان واحد فود نقص هاي صدور شدي كلها الدجان كي كلها وكل هذا xildhibaanka aad dooranaysid kulli waxaad tahay dhalinyarada wadanka garan caasimadda Hargeysa ka mid tahay xildhibaanka aad dooranaysid waxaad ku dooran lahayd xildhibaan deegaankaaga ka soo jeeda mise waxaad ku dooran lahayd xildhibaan aad aqoon iyo karti ku doorato si caasimadda wax ka bedeli kara horta bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaad weydiisay golaha deegaanka ee marka soo socda golaha deegaankana wax weeyaan sidiisaba horta wax garad lama urursado waaweyn horta wax garad baa la urursadaa iyo aqoontii Soomaaliland aad bay uga dhimatay wax garad ma urursadaan waxay urursadaan sida wax loo cuno iyo sida dadka loo baadho niman ayuun bay horta mawduucooda u badan yihiin laakiin si waxa loo baahan yahay in qof waliba halka maaragtay imika walaalo la oran jiray qofkaas waa tuugay naga ilaaliya imika reero waxaad moodaa sidoodaba inay tuugta maaragtay laga quusto sida ciidamada kale la oran jiray niyo hebel waa qalqaaliya askartay naga qoro kale imika xildhibaanadu waa tabta kooda ugu xun ee maaragtay ugu ay leeyihiin waa afmiishaan ayuun baa reer waliba soo dhigayo soo galiya laakiin si rag aqoon leh iyo wax garad leh oo dalkooda iyo dadkooda iyo ummadooda iyo maatidooda midnaba u danaynayo marnaba ma doorano golahaana kumaba haynaba laabtana maba gelinaba ka waxaan leenahay dadka shacabka Soomaaliland dhamaantood qof diinta islaamka garanayo oo xaraan iyo xalaasha garanaya in qof waliba reer waliba iska soo saaro kooda daalinka yaan la soo dhigin intaasaan ugu tala iyo barnaamij Soomaaliland ku soo kordhinaya wassalaamu calaykum wabarakaatu aad ma santaa عليكم والله كسر دوبرار كريجة تدوينها التلفزيون كحرية 24 تي في سؤال شو كويدنا واحد هاي فود نقص هاي دور شدي كلها وكيل هذا يقولها دقيقة
xildhibaanka aad dooranaysid waxaad dooranayd xildhibaan qoyskaaga ama deegaankaaga ka soo jeeda mise xildhibaan istahdi caasimadda wuxuu tarayaa iyo guud ahaan Soomaaliland ما waxaan dooran lahaa walaaloona magacaygu yahay Muuna Maxamed Rooble waxaan dooran lahaa caasimadda mid wax u qabanayo wax u taraya xagga biyaha xagga horumarinta xagga laamiyada waxaba mid noo qabanaya ma doorteen mid reeraha naga soo jeeda wax xagga ka soo jeeda hay'ada mudan walaalo assalaamu calaykum walaal ku soo dhawaad xoriyada 24 TV barnaamijka reega dadweynaha su-aasha ku weydiinaya waxay tahay maadaama ay dhalinyarada ay aqoonyahanka Soomaaliland ka mid tahay gaar ahaan caasimadda Hargeysa waxa soo dhawo food inagu soo haysa doorashadii golaha deegaanka iyo golaha wakiilada maxaad ku dooran lahayd xildhibaanka aad dooranaysid codkaaga siinaysid mid dalka wax ku soo kordhin kara mise mid qabiilkaaga iyo deegaankaaga ka soo jeeda horreyn aad iyo aad baan soo dhaweynaa telefishinka caalamiga ee xoriyada 24 TV inta ka dib horto xildhibaanka aan dooranayo ama waxaan ku dooran lahaa horto waxaan ku dooran lahaa xildhibaanka aan dooranayo cadaalad sinaan iyo kala dambeyn inkastoo ay imka hooyo ku noqotay xildhibaannimadu oo cid kasta soo sharaxdo haddana waxaan leeyahay in aan lagu dooran qolo iyo qabiil midna ee lagu doorto cadaalad iyo sinaan kan dooranayana waxaan ku dooran lahaa cadaalad iyo sinaan waxaan leeyahay doorashadaas way nagu daba dheeraatay ee la soo gabagabay madaxweyne waxaan ka codsanayaa madaxweynaha si dhalinyarada codkooda ay u tixgeliyo in la soo hore loo soo dhigo doorashadaas aad iyo aad u mahadsantahay xoriyada 24 TV السلام عليكم ويكسو تلفزيون كحرية 24 TV يبرنامج كريجة dadweynaha su-aasha ku weydiinaya waxay tahay waxa dhawaan inuu food inagu soo hayso doorashadii golaha deegaanka iyo golaha wakiilada maadaama dumarku cid u badan ee codeysan yihiin dalka guud ahaanba gaar ahaan imika tan food inagu soo hayso codeynaysa hadii ilaahay gaarsiiyo insha Allah maxaad ku dooran lahayd xildhibaanka aad dooranaysid mid qoyskaaga mise mid ay dalka wax u taraya cid dana waa noqday ma waxaan ku dooranayaa wax qabadka dalka waxaana dooranaya waliba anigu ninka berbera sida uu qurxiyay mar labaad dooranaya insha Allah hadii ilaahay igu simo laakiin berbera ka sharxay berberaad ka codeynaysaa bisa halkan ma berberan ka codeynaya anigu qabiil kuma codeynaya wax qabadka iyo quruxda uu berbera u sameeyay darteed baan ugu codeynaya insha Allah hadii ilaahay gaarsiiyo insha Allah waa doonaysid hawlaha arlada hadii lagu aamino ummadda uu sabeeyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysid ehela joogo ay furan idinkuma arkaysid ila adeerko